yuhuud baa dagaalamaysaa iyo muslimiin baa la yidhi xaggee lagu dagaalamaya nusuusta qaarkeed waxay tilmaamaysaa waadiga urdun in lagu dagaalami doono weliba nusuusta qaarkeed waxay tilmaamaysaa bariya galbeed in la kala fadhiyi doono qolana bariga inay joogi doonto qolana ay galbeed fadhiyi doonto inta halkaa isku dishaan baa nabigu wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam yuhuud la jebin doonaa marka la jebiyaaba weliba dhirtu iyo dhagaxa iyo cid waliba ka warrami doontaa geed mooyaane geedka shajaratu qarqadka la yidhaahdo mooyaane inta kale oo dhamme ay sheegi doonaan idan tanna waa bushaaro labaad oo nabigu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam qur-aankuna wuxuu sheegay wacdu laakhira markuu iman doono marka labaad in la baabi'inayo reer banu israa'iil in ilaahay isu soo ururin doono ji'naa bikum lafiifa baa ilaahay leeyahay marka hore waxa la yidhi waqatacnaahum umama kooxa alla ka dhigay israa'iil meel kasta way joogaan dunida alla ku kala daray umam bay noqdeen laakiin ilaahay wuxuu leeyahay wacdu laakhira markuu imanayo maxaa la yidhi ji'naa bikum lafiifa waana ilaahay ballan qaaday wain cudtum cudnaa horaa loo yidhi nusuusta sunnaduna way sheegaysaa iyana inay jabi doonaan baqa kama qabno israa'iilna inay jabi doonto iyadan waxba halkan in badan ka tallaabin maraykan inuu jabi doono waa xaqiiqo jirta waayo raashaa jabay oo ka xoog badnaa cidi taariikhda bini aadamka may sii odorosin raashiya 10 sano ku baabi'i doonta laakiin waxaan leenahay waxaan oo dhami waxay sheegayaan mustaqbal inuu soo socdo de waxaynu nidhi taariikhdu ma la daraasaya taariikhda waxa dib ugu noqotaana ilaahay baa quraanka wuxuu ku yidhi inna fir'auna ala fil ardi waja'ala ahlaha shi'a yastad'ifu ta'ifatan minhum yudabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum ilaahay fir'aun buu ka warramo waxa la yidhi dunidu ku qooqo uu kibirka fir'aun markii alla sheegay waxa la yidhi sababtuna waxay ahayd yastad'ifu ta'ifa dadka wuxuu ka dhigay shiic baa la yidhi kooxo muslimku hadduu muslim noqon lahaa dee ma jabeen laakiin waxay kala noqdeen soomaali iyo somaliland iyo maxay yaman iyo sacuudi iyo masaari iyo turki iyo afghanistan iyo bakistan baa laga dhigay kooxa laga dhigay waa falsafadii fir'aun divide and rule ingiriiska ma iman waa ancient philosophers ki waxay rumaysnaayeen waa wuxuu rumaysnaa fir'aun dadka xukumayay waa divide and rule nin kasta oo raba inuu dadka dulmiyaana halka uu ka bilaaba waxa weeyaan shacabka inaad qaybiso waayo shacabku hadduu wada jiro dee ma dulmiyi kartid oo ku tuuraya haddaad aragto dictator meel fadhiya haddana dulmi wada wuxuunbuu suurtageliyey dadkan un baan isku xidhnayn hadday dadku mid yihiin daalimba ma xukumi karo walidalik baa ilahay wuxuu ku tilmaamaya fircoon jacala ummadiiba wuxuu ka dhigay maxay shiic kooxo kooxa markii laga dhigayna muxuu sameeyey yastadcifu taa'ifatan minhum baa la yidhi koox buu la baxay markaa maalinba reer baa la tumaadee ilaa dad wada tuntaadna waa lagu tumayaa yastadcifu taa'ifatan minhum baa ilahay yidhi koox ka mida buu gumaystay laakiin maxaa uu ku gebagabeeyey gumaysigaa wuxuu gaadhsiiyey baa ilahay yidhi xad uu maxay sameeyey yudabixu abnaa'ahum wayastaxyii nisaa'ahum bay u gaadhay waxay u ahaatay inuu qabiil ku xukumo inaanay ragna dhalin ee ragga la laayo dumarkana in la daayo ay shaqaalo noqdaan waa reer banu israa'iil ilaahay baa wuxuu yidhi subxaana wa tacaala innahu kaana min almufsidiin fircoon wuxuu ka mid ahaa kuwa fasaadka sameeya baa ilahay yidhi laakiin haddana aayaadka ku xiga ilaahay wuxuu leeyahy ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما ما كانوا يحذرون إلهي وحليه سبحانه وتعالى أنه وحان دوني إن كوك الله ذا استبع إلهي ده كوين لكم على الذين استضعفوا في الأرض kuwii dhulka lagu gumaystay baan rabaaba ilaahay subhanahu wa ta'ala ku galadaysto maxaa ilaahay ku galadaystay ilaahay wuxuu yiri waxaan doonayaa inaan ka dhigo a'imma kuwa wax xukuma ee a'immada ah hada waa kooxda la gumaysanayo ayaa ilaahay yiri waxaan doonay inaan ka dhigo a'imma waxaan kaloo doonay inaan ka dhigo baa ilaahay yiri wanaj'aluhum alwarithin kuwa dhulka dhaxlaya waxaan rabay baa ilaahay leeyahay wanumakkina lahum fil ard meel cidla inta la geeyo uun halkaa madax ka noqon maayaan dhulka la makansiinaya baa ilaahay yiri iyaga saytaraynaya fircoonkan iyo kooxdana waa la jabinaya waxa kale ilaahay aayaadka ku siilay wa nuriya fircauna wa haamana wa junudahuma minhum ma kanu yahdarun waxa kale doonayay baa ilaahay yiri inaan tusiyo fircoon iyo haamaan iyo ciidamadoodaba markii la duleynayay markii hore kibirka iyagu ma alla sheegay laakiin markii la jabinayay ma ciidanka alla sheegay labadoodii ciidankoodaba baa ilaahay subhanahu wa ta'ala isku haleynaya
kooxdaana waxaan rabaa inaan tusiyo waxay iyagu ka feejignaayeen iyagu meesha yaan laydinka qaadin bay ka feejignaayeen kaana ilaahay wuxuu leeyahay waxaan doonayaa inaan tusiyo idan waxaan leenahay dhacdo taariikheed oo hore qur-aanku ugu sugan ilaahay baana tilmaamay waa inay dhacdo innagana intaynu noolayna ilaahay baabayna tusay waxaa soo gaadheen ciidan la yidhaahdo red armiga oo la yidhahdo weligiiba dagaal kuma jabin russia weligeed dagaal kumay jabin baa la yidhi afghanistan ka hor owdin red army meel uu galo uu ka soo noqday ma jirto laakiin ilaahay baa wuxuu ina tusayey niman qoryihii 1940yadii dagaalka lagu galay xabadkeliyaala lagu jabiyey ilaahay afqar bilaad illah meel aad dad u gaajaysani joogaan waayo iimaanku goormuu muuqda haddii inta russia iyo maraykana la isku diro mid la jabin lahaa wuxuun baad odhan lahayd dee kuwan baa kuwan ka kaara fiicnaa socankama maydan tidhahdeen kuwan baa kuwan ka dayuurad fiicnaa kuwan baa kuwan ka dabaabad fiicnaa ilaa waa laba xoogoo isgalay laakiin ilaahay wuxuu isgeliyey qolaan waxba haysan iyo nimankii dee satellaytyada cirka loo diro kuwa ugu waaweyn russia unbaa iska lahaa nimankii cirkaba wuxu diran jiray iyabaa alla isgeliyey kooxaan waxba haysan markaasaa weliba la jebiyey russia idan kooxda kale inay jabtaana iyana taariikhda baciidku maaha ama hadda ha jabto ama berri dambe ha jabto waxaan leenahay waa jabayaan hadda odhan maayo waa si suurtagal berri iyana waa suurtagal yani maxaan odhan maayo markaa leeyahay waa maxay yani haybka ma hubo kuwan inayin kuwii jebinayay lakin waxaan leeyahay way jabayaan rushiyaba 10 years ayaa la waayey soviyedkii weynaa oo uu ka soo hadhay in yaroo russian la yidhahdo dunida dawarsataa oo qaxootigoodii dunida laga fadhi waayey saa soomaalida yurub oo dhan qaxootigu joogaan laakiin rushiyadii caynka ahayd hadday saan u dambaysay kuwo kalena inuu u dambaysaa wax fog maaha laakiin kuwa munhazimiinta sii jabay ayaa iyagu jooga halkii cigaal soomaalidu ka sheegaysay soomaalidu maxay yidhahdeen cigaal fulanimadiisa waxay ka gaadhay col horti jabayay bay gabadhiisii ku barooratay baa la yidhi goormaad dhimatay markii la yidhina wuxuu idhi adeer shalaan go'a caalam alislaami koox baa joogta shalaan go'a iyo cigaal u dhaamo cigaal shidaad yacni koox u dhaamo oo tiro badan baa runtii joogta caalam alislaami ma xoog la'a ma xoolo la'a ma dad la'a ma nuclear la'a xataa hadday nuclearka ka warramayaan wuxuu leeyahayba ma jirto laakiin col hortii jabayay baa jooga kuwana way faydmayaan wax sii fog maaha idan waxaan leenahay mustaqbal muuqda ayaa islaamka u soo socda laakiin idinka mid qurun baan idin leeyahay idinku hadiin beelinun baan idin weydiinaya yani islaamka ilaahay baa ballan qaaday inuu soo baxayo ilaahay baa ballan qaaday oo maxay leeyahay waman yartadid minkum can diini fasawfa ya'ti allahu biqawmin ilaahay baa wuxuu yidhi ninkii diintan isaga iskaga noqda ilaahay baa keenaya koox kaloo bedesha idan idinka kuwa la bedelo un ha noqonina idinka waa intaa laydinkala talinaya inaydan noqon un kuwa la bedelo islaamkana wuu soo baxaya ilaahay baana u ballan qaaday inuu soo baxayo diintanna way xoogaysanaysaa cid kasta oo caburisayna horey u caburin kari weyday imikana ma caburayso dunida oo dham inay caburisaaba isku tala gashay way sii faaftay uun intii la tumayay way kasii tiro badantay waxaan lagu dayirina ma jirto oo dunida lagu isticmaalin oo bini aadam si loo toorjar gareeyo aan loo toorjar waxaan soo wada gaarnay qaybtii gabagabada fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir haddii aad hore noola joogtayna inoo laagaray waad ku mahadsan tahay dulqaadkaada iyo qaabka quruxda badan aad noola socotid waxaan kuu rajaynayaa guul asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu